miyaad og tahay in wax agtaada ka liita ay qof kale u yihiin wax aad u qiimo badan? bal ila daawo muuqaalkan cajiibka ah. Ninkan wuxuu u yeeray wiil dhalinyaro oo ka ganacsada warqadaha iyo buugaagta la nacay. wiilkii markuu aruuriyay inta uu doonayay, ninkii ayaa ku dhahay buuggan ka reeb. wiilka ayaa dhahay maad iska dhaaftid, balse ninkii ayaa buuggiisii qaatay oo wuxuu dhahay ma doonayo inaan iibiyo. wiilkan oo u muuqda mid aad u danaynaya buuggan ayaa dhahay lacag dheeri ayaan ku siinayaa, balse ninkan wuxuu dhahay buuggayga ma iibinayo. ninkan markuu damcay inuu iridda xiro, wiilkan ayaa dhahay fadlan mudane miyaan kaa amaahan karaa buuggan? ninkan oo yaaban ayaa weydiiyey, qof wax bartana waad u eg tahay, warqadahan la nacay maxaad ugu shaqaysanaysaa? kadib wiilkan wuxuu dhahay adiga ayay wax la nacay kula yihiin, aniga waxay ii yihiin shahaadooyin jaamacadeed, wax walbo aan bartayna iyaga ayaan ka bartay. ninkan waxaa aad u qanciyay kartida wiilkan, wuxuuna ka codsaday inuu gudaha soo galo si ay u wada hadlaan. kadib wuxuu ku dhahay wax badan oo shahaadooyinkaaga ku saabsan iiga waran, isagoo ula jeeda noloshiisa. wiilkan wuxuu dhahay aabbahay wax ma baran, shaqada noocaana ayuu qaban jiray, laakiin wuxuu jeclaa in aan wax barano. nasiib xumo markii aan 14 sano jira ayuu dhintay. hooyo iyo walaal iga yar ayaan qabaa, si aan u helno nolol maalmeedna aniga ayaa ku qasbanaa inaan hawshan qabto. iskuulka waan ka haray, laakiin weli wax waan bartaa. bal u fiirsa dhabar adeega uu muujinayo wiilkan. warqadaha uu dadka ka soo iibiyey ayuu cilmiga ka dhex baarayaa, isagoo ku fikiraya inuu wax uun faa'iido leh ka dhex helo warqadahan. sawlayaab ma ahan, dhinacna shaqadiisa ayuu ka wataa, dhinacna isla jaraa'idadan ayuu cilmiga ka kororsanayaa. wuxuu dhahay waxaan doonayaa inaan wax cusub barto, waayo horaa loo dhahay weligaa ha joojinin inaad riyootid. wiilkan wuxuu u sheegay inuu buuggan aad u danaynayo, wuxuuna ku dhahay haddii aad ii dhiibto aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. ninkan oo la cajabay kartida wiilkan ayaa ka oggolaaday, wuxuuna dhahay 2 beri kadib ii keen. wiilkanna aad ayuu u farxay, wuxuuna dhahay 2 beri wayba igu badan tahay. sidaas ayuuna buuggii ku qaatay. muddo kadib ayuu wiilkii soo laabtay isagoo wax badan iska beddeleen. warqad ayuu soo bixiyey, ninkii ayuuna tusiyey. ninkan markuu eegay warqadda wuxuu ogaaday in wiilkan loo oggolaaday inuu bilaabo heer jaamacadeed. wiilkan wuxuu dhahay noloshayda ayaad wax badan ka beddeshay, waa mahadsan tahay. ninkiina waa ugu hambaliyeeyey. waa walaalkiin Axmed oo idin leh, waxaa jiri kara dad sidan camal oo u baahan garab qabasho yar si ay u gaaraan heer sare. aan masaakiinta ku garab siina inay u rumowdo riyooyinkooda. like saar page-ka, siina share garay muuqaalkan.